dagaal baanu ka jirnaa dagaal ayaanu ka jirnaa haddii alla idin wallaahi inaan dubu dayacayno bilaahi oo tallaahi wallaahi sida rag yeelaa baan yeelayaa wallaahi waxaanu leenahay gobolka dulmi baa jooga dulmi aan dadka u dhaxay war soo islaamaha dulmi ma jooga qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka beesha degta gobolada Togdheer Saaxil iyo Maroodi Jeex ayaa ka hadlay dil foolxun oo ka dhacay tuulada Xangeeyada oo ka tirsan gobolka Togdheer oo ay sheegeen inay dilkaasi geysteen ciidamada booliska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer waa siday hadalka u dhigeen waxaanay cabasho ballaaran ka muujiyeen gudida nabadgelyada ee gobolka Togdheer waxaanay baaqo u direen wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qoladaas balliga soo ashkataysay balli leeyahay bayaguna aan ka qodeen imaka waa idinka arkay halkaas ay soo tuwayeen ka bayra magaalada ama wadada biciyo samara ama wadada qabri galo inta markaanu nidhi la sacaanood baan ka diidnay inuu ugu jawaabeen taa la sacaanood yaanu ka diidnay waxa kale noo sheegaysaan dadka halkaas soo waxaan gabadha waan cagaf ku aasan biiray inuu ugu jawaabeen waa la naga diiday digniintayadii waa laga dagay baabuurtii qoryaha la laalaadsaday nin dhintay mid dhaawaca mid waxaan ku dhahay madanaysay mid ay mariisa ka dhaxbaxday ninka ciidanka watay waxa leeyahay ninka leeyahay waxa khadar baa leeyahay khadar faarax baa leeyahay waa taliye qayb ku xigeenka weeyaan waa nin reer daahiro macruuf wada la garanayo alla ko beesha awal bari halkan waxaan kaga hadlaynaa waxyaabaha mundarada ee joogtada ee gobolka Togdheer ka dhaca hadii la lagu gumaynayo magac habarawalnimo duban lagu gumayn maayo in maalin walba maatida la soo xasuuqo oo ceelasha maatidu ka cabto maalin walba laga soo aso oo maalin walba halka shaar dawladna lagu xidho waxaan u dulqaadanayna maaha waxaan leeyahay maalin walba in shaar dawladda lagu xasuuqin war aragtaan war ka dagaalamayna oo waa noo dagaal meel aan joogno ciisan awal bareetaan dil bareer oo loo soo talagalo lagu soo tashadaybo uma aanan arkay wax sameeyay dawladeed waxaan jiniyeesu kala garaweynahay dadkaas oo sameeyay dawladda noo soo qaatay markay labadaan dhintay ku dhacday rasaastu nin way qaateen ninna way ka tageen waa la badbaadiyay oo shacabkii iyo maatadii halkii joogtay way badbaadisay ninkii yaalay ee goobta laga tigay ikhtarka adeegana waa la soo gaarsiiyay waxa la qabtay kan balliweyna dee goob caafimaad ma markay sidaas dhacday dee ninka iyagana balliweyba nafta kaga baxday waxaana si taliyaha qaybta ku xigeenka khadar faarax waxba baryootay mayno waajibkeedaanu ka gudan dhacdada noocaas aan ugu dhacday gobolkan waxa haysta ninka la yiraahdo Badha Saaf Maxamed Cabdillaahi Nafaqo haysta waxa weeyaa Maxamed Cabdillaahi Nafaqo gudida nabadgelyada iyo gobolka isaga u sareeyay waxaanu leenahay reerkan awal bari la yiraahdaa shaarkiisi ayaa nalagu gumeeyo nalagu laay shaarkiisi baa nalagu gumeeyo nalagu laay ninkaanu ka cabanayna nin kale maaha waxaanu leenahay waa Maxamed Cabdillaahi Nafaqo qodobka waxaanu leenahay Badha Saafka waa degdeg ninka gobolka lagu bedelo degdeg gobolka lagu bedelo oo cid dhaxadii la doonayo nin cid nabadgelyadu ay soo dabaalanto cid macnaha dhaxa oo dadka taqaano oo macnaha anagu ma diidanin macnaha inaynu dawladda la shaqeyno macnaha laakiin waxaanu leenahay ninkaasu dhinac buu ka reerayay kooxu gacanta ugu jira in waxa dhacayana saa ka masuula dhacday ee foosha xulli ee dilka waxishnimada ee dhacday cidii amarka bixisay haduu bixiyana isagu hay sacday hadaanu bixinna talaabaha ka qab nin dhaawac culus oo caloosha ka soo dhacdina waa la qaata burco way soo badbaadina waxay kala wareegeen balanbaal iyo balliweyn iyo waxay ku afureen meedkiisa waxay ku dul afureen meesha la yiraahdo qoryaal waxay soo laayeen dad shiciba oo soo baxay oo daawanaya oo waxay soo sameeyeen ka xun ayay rasaas la dhax qaadeen dad badan bay laayeen nin dhaawac culus bay qaateen halkii ay badbaadin lahaayeen ay gobolka Togdheer la iman lahaayeen 40 kiiloomitir buu jiray sagaal waxay dhacday koodii duhurnimo shalay hadda ayay dhacday bari bay la qabteen ilaa intuu naftu ka baxaysay uu dhimanayay gaariga ku dil fadhiyay markuu dhintay ay ogaadeen inuu dhintay ayay burca keeneen waxa lagu fuliyay reernimo qabiilnimo lagu fuliyay intay qabiil baa eexba lagu fuliyay cadaaladi ma taalo dulmi baa yaala maanta maalintii dawladdu ama dawladda Soomaaliland ay balli yar dadku leeyn lahayd maanta maalintii dawladdu ummadda reer Soomaaliya gudaheeda ka kicin lahayd maanta maaha iyadoo la sacaanood dhibta taaganay aynu ognahay iyadoo dhaawacyadii meel bay yaaliin iyadoo dhib badan ay haysato in dawladdu ay maanta nabadgelyada u xil saarnay
inay maanta iyadu bilowdo kacdan hor leh oo Soomaaliland bartamaheeda ka bilowdo tirsanaysa ee loo geystay ee awal bari waxyaabo hore badan ay hibanaysay oo xaq darro oo dulmi ah oo in badan aan u samirnay indhaana ka qarsanay halka hawsha telefoon xumooyinka ee qaadawaaga leh maanta waxay sababtay inay keento dil bila sabab ah iyo weerar cadaan joogsi oo shuftayna dilka ka dhacay magaalada xangeeyada shaleeto labadii duhurnimo waa dil aad u fulxun weey waa dil aan la qaadan karin weey waa dil laba geeriyooda weey waa dil ka baxsan islaamnimada iyo heer xukuumadeedba balligan yari ay soo aaseen ee labada balli u dhaxeeya magaalada xangeeyada iyo balliga Cabdullaahi Arab u dhaxeeya ay soo dawayeen qolada Cabdullaahi Arab cidda xukuumisay waxa weey degmada qabri gurdu weey gudoomiye leedahay boolis bay leedahay ku xigeen bay leedahay xukuumadda xukun bay leedahay iyo maamul jira hadday tahay mid degmo iyo hadday tahay mid magaalada tuulahaan xangeeyada ida la cid gobolka Togdheer uu ka ogeysiyay hawshaas ay fuliyeen ee hawlgalka ee dilka ay ku geysatay midna wax laga ogeysin laba nin ayay dileen nin isagoo dhaawaca ayay ka tageen oo annaga gaari soo saaro burca keenay ninkii kale iyaga ayaa qaaday isaga oo hadlaya oo rasaastii ay ku taalo hawd bay la qabteen aakhirna waxa naloo sheegay inuu ninkii sidaa ku dayacmay oo uu ku dhintay markii wanaga naga waayo markay mas'uuliyiintu ku yiraahdeen war meeshan waxba ka jira in ka bayda oo ama wadada mara ama taamara way diideen waxay yiraahdeen shay walba lagu aasi doonaa waxaanu leenahay haddii nalaga hagaagi waayo raggiis waxa sameeyay wax laga qaban waayo ama gacanta nalaga saari waayo dagaal baanu ka jirnaa dagaal ayaanu ka jirnaa haddii Allah wax xun baanu ka xignaa reerka halkan maanta ka muuqdo waa awal bari waxa isu keentay dhibta ka dhacday magaalada xangeeyada shalay ayaa isu keentay waxa ay ku soo ururtay gobolku dilka iyo waajibaadka qaldan uu fuliyay inuu ku sii soconayo arinta markii lagu baxayay hadday suldaan tahay hadday caaqil tahay hadday maxay waanu joogno cid la soo ogeysiyo leeyahay halka waxa ka dhacay ee wax ka qabta ma jirto waxa jiray waxa marka horeba odayaasha looga talaabay midna inaan la ogeysin ayaa jiray waxaana halka laga wadaa in arin aad u foolxun oo aanay Soomaaliland maanta u baahnayn in halkan ka bilaabato gudaha si degdeg ah u bilaabato qoys la isugu bilaabo 25 magaalo sanadii ugu dambeeyay la sameeyay oo koonfurta gobolka Togdheer kama xumin mid walba waa loo saxeexay oo waa loo ogolaaday beeshan aan suldaanka u ahay rag halkan taagan ay ka soo jeedaan hal magaalo may sameyn bal ay cusub ay qodeen ma jiro war waxan dadka looga takooray ee dadkii looga soocay ee loo raadsanayo ee halka nin ku kaajo leeyahay halka buu ku kaajo leeyahay halkan meel oo waaba la yiraahdo nin jooga oo miskiina oo barkadiisii 3 goor la aasay oo 4 goor la xidhay oo la baabacsaday oo waab hoos fadhiya oo maalin walba inta baabuur qabaali u taqabaal gawaarida lagu ridanayo war goortay khadka ka baxeen ciise muuse Togdheeri iyo awal bare goortu khadka ka baxay ee muxuu ahaayay saaxada muxuu ahaayay bani aadamka laga saaray ee gobolka laga saaray waa goorma war ma anaga dawladii aanu dhisnay ee aanu aasaasnay ee aanu ku tacabnay ma anaga hoosteedina lagu daliyo dadkaygi maalmo bacagta la marinaya ma aqbalayno oo ma yeelayno ilaa dadka muxuu ahaayay falka fuliyay ee cadaawadda inta laga sameeyay ee dadkaygi ku gooli baaray iyagoo sooman waa Siciid Cali Cismaan Xalays telefishinka caalamiga Gobonimo magaalada Burco ee xarunta gobolka